بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرنامج كان امتحانها دقالها إسلامك iyo muamalaadka heshiisyada ganacsi ay bangiyadu bixiyaan waxaynu dhexda kaga jirnay baabu salam iyo ahkaamtiisa nacaawana isagii baynu maaragtay si qaada dhigaynaa hadii rabbi idmo muxaadarada qaybteeda hore عشرة قيبتي سهرة دكتور كوحنوس وجدين دونا سلام كنا كهالي دونا يحكم تيسا قيبت الدمنا وإحنا قندونتا سؤاله نسوي ديسان مركا أنت عشر صعودا وحي سؤال قفك صادر سنة قفك ورقتك صقرية وإيسو ديبي كلا قفك كلنا وحكو صادر سن كلا تلفونك فروا 7 إبر لح صدحية ولحنا لبو فروا 7 إبر لح صدحية طبعا لحدني لو تلفون كاس أيقو صدري كرتان وحي سؤال أينو كوضا في السنة دكتور أحمد جاء إسماعيل المري وعلى تليها دنك الشرائع هذا بنك عمل دكتور كسروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى وحينو لما يستر النادر سجي أينو قاضني فردقو الدنبيي oo ku saabsanaa salamka waxaynu hore u tilmaannay salamku inuu yahay nooc ka mid ah buyuucda oo qaabkiisu yahay in qofka wax iibsanaya uu lacagta qadimayo badeecada uu doonayana tilmaan sugan uu ka bixinayo kadibna qofka alaabta iibinaya uu muddo u qabanayo alaabta uu ku keeno iyadoo tilmaamihii lagu ballamay leh waa bay'un mawsuufun fi dhimma ama bay'u mawsuufin fi dhimmati bi thamanin maqbuudin fi majlis al-aqd waa shay la tilmaamay oo qofka lagu leeyahay in la iibiyo lacag lagu kala gudoomayo goobta heshiiska iibku ka dhacayo waxaanu ka soo hadalnay adillada ee tilmaamaysa in arrinkaasi uu bannaan yahay kitaab iyo sunnaba waxaynu ka soo hadalnay sidaas leeg shuruuda uu ku bannaan yahay caqdiga noocan oo kale ah insha Allah taala caawa ahkaam kamid ahkaamta salamka baynu ku dhameystiraynaa kadibna wixii su'aalaha insha Allah taala uga gudbaynaa ahkaamta waxa kamid ah goobta lagu kala gudoomayo salamka culimadu way ka hadleen waxay tilmaamaan qaarkood in la cayimo goobta lagu kala gudoomayo oo markaas waxa dhici karta alaabtu inay tahay alaab u baahan ama nooli ama in la hawl la galiyo iyo kharash marka goobta lagu kala gudoomaya waa inay cayiman tahay si hadhowto aysan u keenin kharash dheeraada marka culimadu waxay yiraahdaan waa in goobta la isla cayima haddaan la isla cayimin maxaa dhacay waxay leedahay la isla cayimin oo goobta la isla xadidin ama la isla tilmaamin lagu kala gudoomayo alaabta muslimu fihiga ah goobtii heshiisku ka dhacay ayaa noqonaysa goobta gudoonkuna ka dhacay yani hadiiba laga hanfafo ama la ilaawo in la tilmaamo goobta alaabta lagu kala gudoomayo waxa goobtaas ay noqonaysaa goobtii heshiisku ka dhacay waxa kale ka mid ahkaamta ay ka hadlaan culimadu hadii ay dhacdo oo ninka alaabta laga sugayay muslimu ilayhiga ahi oo alaabtii keeno xilligii la sugayay xilli ka horeeyay maxaa dhacay waxay leeyihiin waa la kala qaadayaa haddii alaabtaasi tahay alaab u baahan hawl sida xoolo u baahan in la waraabiyo oo la calfiyo oo ama la daajiyo ama wax la mid ah haddii ay tahay alaab fasahaadaysa oo xilligii uu qabsaday ninka alaabta iibsanaya haddii laga soo hormariyo asuu la doonayo xilligii inuu ama ku tasarrufo ama iibiyo isagu uu hore u qabsaday soo qadimaadaasi haddii ay keensanayso in alaabtii fasahaado sida khudaar iyo wax la mid oo kale
ama hadeeba idmahayo uu dan ka leeyahay xilligu qabsaday xilli mawsimo oo kale oo la sugay badeecadu inay iib yeelanayso wixii la mid ah hadday xaaladaha noocaasa tahay lagu khasbi maayo ninkii lacagta sii bixiyay alaabta sugayey inuu markaasi alaabtii guddoomo la soo hormariyey xilligii laga soo hormariyey haddii laakiin wax dhibaataya aanay jirin oo inuu xilligaa hore la soo qadimay oo alaabtiisii guddoomo haddaan wax dhibaatay ku sugnayn wax kharasha aanay kalifaynin xooluhu aanay talfayn oo baaba'aynin ama fasahaadayn xilli uu la sugayey oo beecu uu taabagel yahay oo la sugayey aanu jirin isagu mid ay tahay inuu hadda guddoomo inuu hadhow guddoomaa oo la soo hormariyo waxaa markan lagu khasbayaa inuu alaabtii guddoomo sharcigu yaa buu leeyahy cadaalad buu ku dhisan yahay haddii qofku xilli qabsaday oo xilligii haddii laga soo hormariya ay dhibaata isaga dhibaato ku keenayso ama kharash dheeraadii fuulayo ama alaabtii fasahaadayso ama mawsimkii xilligii ugu talagalay ee iibku wacnaa laga soo hordhaco lagu khasbi maayo inuu markaasi guddoomo waxaa la odhanaya ninkii alaabta laga sugay hay ilaa xilligii la gaadho haddii se aan wax dhibaatay ka imanaynin loona soo qadimo loo soo hormariyo waxaa weeye waa faa'iido dheeraada marka inuu wixiisi guddoomo ayaa laga doonayay waxaa kale oo ka mid ah alaabtaas marka qofkii laga sugayey ee muslimu ilaahiga uu keeno saddex xaalo mid bay noqonaysaa alaabtii inay leedahay tilmaamihii iyo muwaasafaadkii lagu ballamay horeynu u tilmaannay inay ka mid tahay shuruudda muslimu fiihiga ama badeecadda la iibsanayo waa in tilmaamaha hadhow aan muranka geli karin oo dhan lasii caddeeya haddii markaa tilmaamihii laysla sheegay ee qofka wax iibsanaya uu shardiyey alaabtii iyadoo tilmaamihii leh haddii la keeno oo sidii lagu ballamay ah waxaa lagu khasbayaa ninkii alaabtaa hadeeba idmahayo iibsanaya inuu dee guddoomo waayo shardigii ay ku ballameen uu ka soo baxay ninkii alaabta iibinayey ee muslimu ilaahiga ahaa haddii alaabtaasi ka tayo badan tahay tii isagu uu sugayena iyana waa waxaaga wax lagugu dar iyana waa lagu khasbayaa inuu guddoomo laakiin haddii ay ka tayo liidato wuxuu leeyahay khiyaar ama waxaa la kala dooransiinayaa inuu alaabtii diido oo lacagtiisii qaato ama inuu isagu iska cafiyo oo markaa ninkii isagu oo alaabtii tayadii lagu ballamay iyadoo aan lahayn ninkaa keenay inuu ka guddoomo oo markaa cafwi iyo saamaxaad oo markaasi ku qaabilo waxaa kale oo ka mid axkaamteeda haddii ay dhacdo qofku alaabtii keeni kari waayo iyana waa xaalado midkood wey saddex xaalo midkood bay noqonaysaa in alaabtaasi uu u keeni waayey mucsirnimo ninkii muddaa la ballamay haddaa lacagta loo dhiibay 3-4 bilood kadib baa lagu ballamay alaabta inuu keeno aafaa ka soka martay xoolihii baa ka dhammaaday beertii baa ka gubatay hantidii baa kaga degtay badda iyo wixii la mida ninkii waa masallafay ama muflis buu noqday haddii marka noocaa uu yahay oo qofkii waa qaamaysan yahay lacag buu hormarsaday alaabba ballan qaaday alaabtii wuxuu u keeni kari waayey ninkii caydh buu noqday hadday saa tahay waxaa laga doonayaa qofka lacagta sii bixiyey sii hormariyey inuu sugo oo waajib ku ah ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara haddii qofka deynta lagu leeyahay uu yahay qof mucsir ah oo aan waxba haysan waxaa waajiba markaa in la sugo ilaa xilliga uu hodan ka noqonayo ama awood uga helayo inuu deyntiisa ka bixiyo qaanbaxo xaaladda saddexaad qofkii haddii bayd maayo ama dhahda xaaladda labaad qofkii mucsir maaha laakiin waa mumaadil wey isagoo hantiilo ah oo buuxa oo ilaahay maal siiyey ayaa lacagtii uu hormarsaday alaabtii uu ku ballan qaaday inuu ku iibiyo ayuu keeni waayey isagoo awooda meermeerin iyo haddii bayd maayo bukli iyo warwareejinbu markaa sameeyey xaaladdaasoo kalena waxaa la doonayaa haddii laga qaatay hore looga qaatay rahan cudhaadh ama damiin ama wax la mida in la fuliyo waxyaabihii ixtiyaad ahaan loo dhigtay haddii laga qaaday rahan oo kale rahantii la iibiyo qofka
lacagta sii bixi uu ka goosto hantidiisi intuu ka goosanaya waa alaabtii lagu ballamay uu ka iibsanaya inta la iibiyo gurigii ama haddee bayd maayo gaadhiga ama wax la mid ah ba waxaa lagu iibinayaa wixii ay ku ballameen badeecada ahayd ay ka sugay ama haddii uu damiin lahaa damiinkii baa lagu khasbayaa xoolihii inuu bixiyo xaaladdaasna waa xaaladda uu yahay mumaadil qofka alaabtii salamka uu ku qaatay lacagta uu ku qaatay ee laga sugayay keeni waayey hadduu yahay mid wax meermeerinaya wax wareejinaya waxaa laga qaadayaa cudhaadhii in la fuliyo oo la iibiyo oo laga goosto hantidaas ama badeecadda qiimaheedii iyo iibkeedii ama haddii ba idmahayo in haddii uu damiin lahaa damiinkii laga magdhowdo xaaladda saddexaad waa in cudur daari ah ama dhib lama filaana qofkii ku soo baxday haddii ba idmahayo safarkiibaa daahay iyo wixii la halmaala markaana wuxuu khiyaar u yeelanaya qofkii lacagta sii bixiyey ama caqdigii inuu fasakho oo heshiiskii ka baxo lacagtii celi ama inuu sugo muddo dambe oo markaas ninkaasi uu badeecadii iyo alaabtii ku keeno waxaa ka mid a waxyaabaha culimmadu ay ka hadlaan oo weliba muranka ay geliyaan alaabtii qofku dalbaday alaab ka duwan ma ku bedelan karaa culimmada badankooda arrinkaa way diidaan waxay yidhahdeen istibdaalku ma bannaana qaarkoodna waxay u sameeyaan shuruud laakiin way banneeyaan oo maalan nin baa waxaa salam ahaan lagaga iibsaday 100 kiisho bariisa xillina waa loo qabtay lacagtiina waa la siiyey muddana waa loo qabtay muddadii markii la gaadhay ayaa qofkii badeecada sugayay wuxuu aniga bariiska iga bedelo timir igu bedel maalan ama hadhuur igu ama wax kale igu bedel marka culimada qaar way diidaan oo sida u badan yihiin culimada qaarna waxay ku shardiyaan shuruud marka koowaad in xilligii la gaadho oo ajashii iyo muddadii la qabsaday in haddee bayd mahayo la gaadho waa qodobka labaad badeecadda lagu bedelayaa tii hore waa inay tahay mid u suubata inay noqoto muslamu fiihi oo maalan hadday shay ribowiya oo kale noqoto oo raasumaalkii la dhiibay ama lacagtii la dhiibay waxay ahayd maalan lacag doolar ah ama shilin ama wax la mid ah badeecad baa la sugayay bariisa wuxuu waxaad igu bedeshaan dahab marka ma bannaana waayo dahabkuna waa lacagtii la hormariyana waa lacag kala dibdhigoodu wuxuu keensanayaa haddee baid mahayo shay maxduur ah ama ma bannaan in la kala dibdhigaa haddii saasoo kale ay tahay raasumaalkii la qadimay ama hore loo dhiibay hadduu yahay raashin nooca laquuto ah la keydsadan kara sida bariis oo kale shaygii la sugayana uu ahaa maalan haddee baid mahayo badeecad caadi sida maryo oo kale iyo wixii la mid ah maryaha in lagu bedelaa bariis kale ama timir ama wax la mid ah ma bannaana waayo bariiskuna waa ribowi timirtuna waa ribowi waxay ahayd markii la isku bedeliyo hoo iyo hoo in lagu kala guddoomo waxaa kale oo shardiya bay culimmadu leeyihiin shaygaa lagu bedelayay shaygii hore ee la iska dalbay waa inaanu qiimo ahaan ka badnayn kii hore asalka ahaa ee la kala iibsaday oo maalan haddii 100 kiisho bariisa la kala iibsaday ka lagu bedelayaana uu yahay timirtaa qiimaheedu xagga suuqa hadday 100 kiish tahay ama 50 kiish tahay waa inay u dhigantaa 100 kiisho bariiska ahaa ee la sugayay haddii ay ka badan tahay waxay noqonaysaa ribo mana bannaana haddii ay la eg tahay ama haddee baid mahayo ay ka yar tahay se dhib ma leh bay culimmadu yidhaahdeen markaa istibdaalka xukunkiisuna waa sidaa weyn intaa waxaan uga gudbaynaa bangiyadu qaabka ay ugu dhaqmaan salamku waa sidee bangiyadu waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo assalam wasalam almuwaasi waa salam iyo salam kale oo barbar socda muwaasi yacni waa dhinac socdo weyn oo marka suuradiisu waa maxay laba qaab bay mid noqon kartaa qaabka koowaad in bangigu uu yahay muslim oo kii lacagta qadimayay uu yahay oo maalan beeraley wuxuu kula heshiiyey lacagtan iga qaata $100,000 waxaan idinka sugayaa maalan maarj ama abriil markaa gugu do-o waxaan idinka sugayaa maalan 1,000 kiish oo bariis ah markaa salam buu sameeyey isagu uu yahay mushtari wax gadanaya
qoladii beeraleyda intay baayic tahay wax iibinay heshiiskaasi markuu dhaco waxaa bangiga u furan inuu suuqa galo oo yidhaahdo qola ganacsata oo bariiska ganacsata ama wax la mid ah inuu yidhaahdo waxaad iga iibsataan oo lacag igu hormarisaan haddee bayd maayo 1 kiish oo bariisa oo aan idin keeno maalan May ama June marka hadduu 100,000 bixiyey oo isagu hormariyey iyaga wuxuu kaga gadayaa 120 wuu ka hormarsanaya haddii muddada la qabtay ahayd bisha 3 ama 4 abriil iyo maaris wuxuu qabsanayaa May iyo June oo kale marka muddadu way ka dambaysaa lacagtii way ka badan tahay marka ka horena waa salam ka dambana waa salam marka waa laba salam oo barbar socdo weey as-salam was-salam al-muwazi baa la yiraahdaa waxa weeye salamka hore bangiga wax iibsanaya oo lacagta hormarinaya salamka labaad badeecadii uu sugayay mid la mid oo ku jaan go'an buu wuxuu ka iibinayaa qolo kale oo iyagana wuxuu ka hormarsanayaa maxay lacag laakiin waxaa shardiya labada salam in la isku dabrin la isku xidhin oo aanu oranin maalan bangigu anigu 1 kiisho bariis oo aan ka sugayo hebel weeye waxaan ka gaday haday saatay ma banaana waayo salamkana waxa dhici karta inuu soo waayo ama dib ku dhacdo laakiin waxa la doonayaa 1 kiisho bariis isagu uu dimadiisa ku qaaday ama kan ha ka helo ama suuqa ha ka soo iibiyo buu ka iibinayaa ciidan kale muddana wuu qabanayaa ka dambaysa muddadii qoladan uu isagu kula heshiiyey lacagtu qoladan kaga iibsadayna mid ka badan buu kuwan kaga iibinayay idan wuxuu macaashayaa labada qiimayo inta u dhaxaysa salamkoodana waa mid isagu wax ku iibsanayo ka dambana waa mid wax ku iibinayo labada salam oo isku xiran ama laba heshiis oo isku xiray ma aha waxaan filayaa halka in la fahmay marka wuxuu iibinayo wuxuu iibsanayay laakiin laftooda afka ku dhufan maaye jinsiga wuxuu iibsanayay ama noocoodii ama qadarkoodii intii in la eg buu gadaya laakiin oran maayo alaabta aan ka sugayo qoladaas aan ka iibinay waayo alaabta ma iibin karo gacan kuma hayo waxaase sharcigu u banaynayaa badeeco uu dimadiisa ku qaaday oo isaga laga rabo ama qoladaha ka helo ama duka way suuqa ka gadee buu iibinaya oo salam labaad ku iibinaya waxa la marka as-salam wa salam al-muwazi marka taas waa qayb oo ka horena uu yahay bangigu kii wax iibsanayay ka dambana uu kii wax iibinayay waxa dhici karta cagsigeeda oo maxay ah waxa uu imanaya bangiga niman lacag wata oo iyagu lacagta qadimaya waxay ka dalbanayaan mesela China dhar intaasoo container oo dhar ah shaarar iyo surwaala iyo wixii la mid ah muwaasafaad muayana leh shaarar noocaas oo markadaas oo saas oo xajmigaas oo size-koodu inta la eg yahay oo tirada inta la eg dhan lacagtii مثلا bay guddoonsiinayaan hal container qiimihiisu $10,000 مثلا lacagtii bangigu waa guddoomaya heshiiskina wuu gelayaa in مثلا laga sugayo bil kadib hal container oo mariya ah oo shaarada oo noocaas saas muwasafaadkii dhan kadibna bangigu markuu lacagtii guddoomo heshiiska hore uu galo wuxuu la xiriirayaa warshad joogta China oo kale ama company wax soo dejiyo oo kale wuxuu oranayaa waxaan idinka doonayaa adiga iibisaan hal container oo shaarada nafs almuwasafaat yani muwasafaadkii qoladan ama tilmaamuhu kula heshiiyey kuwa la mida uu sheegaya hal container oo shaarada oo markadaas oo tirada dhan ila aakhiri waxaadna iga siisaan $8,000 muddaduna waxay noqonaysaa 2 bilood kadib idan qiimuhu isagu ku qaatay qiimo ka jaban buu kaga iibsanaya qoladan dambe muddaduna waa muddo ka dambaysa tuu qolada hore kula heshiiyey si marka kontraktka yimaado uu chance ugu helo intuu yimaado inuu qoladan guddoonsiiyo laakiin iyana waxaa shardiya labada salam isku xidhi maayo oo hadduu isku xidho waxay noqonaysaa in containerkan qolada laga dalbay inuu yimaado inuu iman waayo iyo wax walba oo suuragal weyn wuxuu marka leeyahay adiga container mariya ah oo dhar ah oo shaarada oo saas laga yaqaana ama halkan aan ka helo halkan aan ka helo dimadeeda waxa ku sugan oo leeyahay leeyahay inaan keeno halka container mariyaha oo leh hadee bayd maahay muwasafaadka iyo tilmaamaha noocaas muddada ku keeno iyo qiimaha
marka labada qiimayow 10,000 farqiga u dhaxeeyo 2,000 ayuu bangigii faa'iiday marka salamkan labaad bangigu qaybta hore isaga ayaa hadee bayd maayo mushtariya ana dhahdo isaga ayaa hadee bayd maayo baayica wax gadaya qaybta labaadna isaga mushtariya wax gadanaya marka labadaas salam السلم والسلم الموازي باكمدا قاببكا بنقيدو أي ugu معاملان هذا بعيد ما هيو سلم كمركزي uga فائدان وحكلا أو ينحسد مدن أحكام يدنا الله حريدا سلم يسلم كموازية وعلمنا أي تلمامان معاصرين تاعي وحكمدا بنقو حلقة يابا إن وقعان بنانين إنه شركات كمبني لقلو هشيس oo alaab u ballan qaado inuu keenay hadana company labaad oo hadaba la galo heshiis ah inuu alaab ka iibsanayo waxa u banaan inuu wakiisho cid kale hawsha labada hawlood ba furisa oo marka uu siiyo mushqaayad iyo hadaba idmahayo commission wax la mid ah uu siiyo dabeedna wakiilkaasi uu kuwana la heshiyo barnaamijka oo dhan oo markaasi fuliyo waxa kale culimadu ay ka hadlaan هذه مثلا عدة سلم كوكوليشية أي تهي ورشد أو كله ما أبنات بنجيجا إنه وكيش إسلا عدي ألابتا وكسوي ومثلا ورشدها عالم كويالا وحلقة يبقى إلا قدر بدو كميات بدن بنجو كدر بدو أو بضيعين أما حتى ورشدها المحلي جاه لوكال كا إنه ألاب كجتو كميات بدن وحلقة يبقى ورشد وحيلاته معامل alaabta noocan oo kale ka iibsataan marka ma banaatay bangiga inuu salamahan kaga gato lacagta hormariyo sidoo hormariyo alaab noocaas oo kala qalab guriyaba dhada doonto fadhiyo guri oo gaariga inta miisas iyo kuraasda doonto iskuul iyo wax la mid ah kadibna bangigu dhaada alaabtii markaad keentaan aad samaysaan haday tahay مثلا warshad oo kale wixii la mid ah oo alaabtii markii aad samaysaan way idinka gudoomaya kadibna waxaan idin تفويضنا يا أما إذا وكيلنا إن إذا كي بيسال معامشين وإذا كأوفر في اللوبان أو على بها النوع أنا إذا كسمي أو معامل بدن بيد كحرا تصنع على مدى وكهل لان وأنا أحسن إلا جب فوجاد وأرين كاسو يا وعن سأني أنقنين ألعبت عدي اللي جاي بسين دي هذا دب لوجو علي لكن هذه قدوم كسيسة حودعه أو ورشدوا ألعبتي سميسو أو بنجي قدومه سي شرعي قدومه alaabtii la wareego inuu iyaga ku celiyo iibiyo waa idin wakiishaye dhib male laakiin waa in wakaalashada iyo iibkii hore laba heshiis oo kala duwan inay ku dhacaan haddii iibkii hore iyo wakaaladii isku mar yihiin waxay noqonaysaa baycatayni fi bayca nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa diiday laba heshiis ama laba iib isku guda jira in la sameeyo marka waxaa bannaan in salamku horeeyo bangigu salamahan kaga iibsado warshada ama kambaniga alaabta markuu alaabtii gudoome ee kala wada inuu yiraahdo waxaan ku wakiishadan iibso iyo wixii la mid insha Allah taala salamku waa iska war badan yahay ahkaam yada fariisan oo kalena uu iska yeelan kara laakiin insha Allah taala inaha saynu ku soo gabagabeynaa wixii su'aalaha baynu gudbinaa wajazaakumullahu khairan wa baraka fiikum جزا الله خير الجزاء إله سبحانه وتعالى دكتور أحمد كوال مريو عشر كيسة قيمها بدن سلامكم كسب سنة هذا السؤال ما أقولينا طبعا أنت عشر كسعودة وحي سؤاله لمبر كان أيقو صدري كرتان تضبط إبر لح صدح يتلح يلبو تضبط إبر لح صدح يتمن لح لن يلبو سؤال شكوات دكتورة waxay tahay laba qof ayaa waxay ku heshiiyeen in qofna uu leeyahay lacagta projectiga lagu qabanayo ama businesska qofka kalena wuxuu leeyahay xirfadda qofna lacagtu leeyahay qofna xirfadda iyo aqoonta iyo mas'uuliyadda inta uu wado dhismaha mashruucaas salahan dhisme petrol station ama hotel iyo wixii la mid ah waxay ku heshiiyeen inuu wax ku yeesho raasmaalka boqolkiiba 30 diintu maxay ka qabtaa annagoo og in ay mudaarabadu ogashahay faa'iidada inuu qofka wax ku leeyahay ee u saaran raasmaalka
وحكول يهي جزاك الله خير. إساش وحان فهمي نمبا هانتيلا ورب المال ما حولها يستا وحدوني حولي سين لو شقيو ننو حولي هاي خبرات وكاغا شقيو هانتيلا أما مشروع على دونيو إن لقو مال قليو وخبرات أوليه marka wuxuu doonayaa inuu khibradiisa kula shirkeeyo oo مثلا raasumaalka boqolkiiba 30 iyo wax la mid ah inuu ku yeesho samahay su'aashu inuu ku yeesho khibradiisa sidaana mashruuciyo ku dhiso aynu ku wadaagaan inta aan ka garanayo qofku khibradiisa waa iibsan karaa ومثلا وهدو وحقبته نبا مشروع صور دسي لقى فائدة كرو رأي قناعسي بوكاني هذا مشروع بوكاني فائدة له قناعسي مشروع عاصل لقى قضانية كدبنا العقب على الصينية مركز العقد اللصيو هذا بعيد ما هيو هكو شير قريو أما هكو درصدو كمبانية وراسمالك وكوية لنا شركات هالنغضو من لقاسي فكري كسو ما حدي بس كحديثة وصوب بندقة قناعسي لقى يبسلي لقو معاشي هانتي دا لقى يبسلينا هلا قدونسيو كدبنا هانتي دا لقى قدونسيو وفكرة دا كو قاطي مشروعة وأساسي دسي هندسي وكوجاتي أكود رسالة كمالي ومركز رأس المال كساه ويش. وحكى له صورة جلأة قف يشغيني ونبال عكياني نحوجي يوحوليه خبرتي. مركز كان حوج له فكرة وكانوا هذا مشروعه هذا مشروعا لجلي نينك حولها إسكاليه ودوني حولها إنه كوجلو كاسو وفرد دوبيا مركب وحسك حشنية نينك هنتيلها هي هاوشي وسك حشنية وحلي أنا العكس ما كان أنا كشغال هذا يسوق خبر بدني هذا النوع عاطي مضاربوي وننا وحلي حولي ننا حوجي بوليه كان حوج له رأس مالك حكم عليه كحوج له رأس مالك أما هنتيلا لجو أساسيو شركة وحبا كم لها وحكوا لي فائدة أي صوص هرتو وأي كجاه شيء نسجع يهنتيلوه أي كجاه شيء يان نسبة بقلية أما سامي بقلية أي كجاه شيء يان بقول كي بكونتن كنا كنت حكوا لي حوالي كنا كونتن فائدة كلية هاي حوجيسة أما اللي إحنا يافرت ما صدق انتظارات بوحلقوه شيء marka raasumaalka wax ku yeelan maayo hadii faa'iido la waayo waxa way waxba yeelan maayo qofkaas waayo commissionka aan dhaahdo ribaxa ka soo baxa mashruuca wax ku laha hadii ribaxa la waayo waxba yeelan maayo hadii khasar dhacana waa mudaaraba oo khasaaro wuxuu ku dhacaya xuduuba khasaarobaan ninkii hantida laha kana wuxuu khasaariyay xoogiis hadii nooca loo dhigana waa mudaaraba sax laakiin fikrad aan la kala gadan oo ninku hantidiisii iyo hindisihiiba uu keenay nin khibrad badan baa tahay xoolaha ku shaqeeya Soomaalkan wax ku yeelo wax sax ma aha waayo wuxuu gadayaan jirin wuxuu gadayaa hindisiina ma lahayn hantidina ma leh wuxuu gadayaa mashraan marka waxay noqonaysaa inuu ku mushaarakeeyo xoogiisa oo mudaarib noqdo shaqadiisa wax ku yeelan hadii faa'iido soo baxdo hadii la waayna xwaayay inuu noqdo laakiin nin waxaan ahay injineer ama waxaan kadaabaan khibradayda oo aan shaqo ahayn ma raasumaal ku yeelanaya arin saxa ila ma aha intaan su'aasha ka fahmay waa inta ay jawaabteedu wallahu a'lam sa'il kale ayaa wuxuu leeyahay doctor ma ku heshiin karnaa labada dhinac in lacag ganaaxa laga bixiyo haddii alaabta ay xilligii lagu ballamay ku imaan weydo labada dhinac ba ku ballami karaan in la ganaaxo kii la soo daa bismillaahir rahmaanir rahiim haddii ay salam tahay
oo haddii su-aashan u fahmaya weeye haddii badeecadii lacagta lagu qadimay ee la sugayey xilligeedii qofkii laga sugayey uu daba mariyo ma la ganaaxi karaa maya waayo waa qaamaysane hadduu qaamaysan yahayna dayn baa lagu leeyahay dayntu intay la egayd keliya baa laga doonaya oo lagu leeyahay wixii dheeraada ee la saara waxay noqonayaan ribo ataqdi am tarbi xoolihii ma bixin mise ziyaadad ku daray hadday noqoto arrinkaasi arrin bannaan maaha waa haddii wuxuu dayn yahay haddii uu yahay mashruuc kale oo aan dayn ahayn oo ganacsi oo lagu ballamay iyo wixii la mida oo aan dayn shaqo ku lahayn oo kambani baa guri dhisayey iyo wixii la mida gurigii buu daahiyey muddadii buu dhaafiyey haddii la kala qaatimay waxbaa la kala iibsanayey taasoo kale ma la ganaaxi karo mise lama ganaaxi karo culimmada islaamku khilaaf dheer bay ka leeyihiin waliba mucaasiriinta ahi oo wax la yidhaha shard aljazaa'i baa la yidhaahdaa kutub kaamila laga qoray waxa ay igula dhowdahay ra'yiga odhanaya haddii wax dhibi ka yimaadaan dibdhaca waxaa loo qadiyadda loo wareejinaya maxkamadda ayaa markaa qiyaasaysa dhibka ka soo gaadhay qofkii kambaniga ama mashruuca loo dhisayey ee lagala daahay ee dhismihiisii haddii khasaaro galay khasaaraha waxaa qadaraya ama haddii baydmahayo waxaa qiyaasaya maxkamadda laakiin wax la iska sii xadiday ama lacag la iska sii qoray oo la yidhaahdo haddii aad intaa la daahdo ganax intaa la eg baad yaad bixinaysaa inuusan bannaanayn bay igula dhowdahay wali culimmada mucaasiriinta ahi khilaaf dheer ka leeyihiin culimo ajilaahina ay banneeyeen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam سائل كلا يا وحولي هاي كورن شيخ الدين إنكي لعقت ملكيي وحوله إنتو لغوب الله ماي وهالي وايو تلغوب الله وهالي واي إنو قيب وبحيو سنكم كوبا نانتا هدي قفكو وهالي واي بضيعضي وحا بنان انت لهلينا in lacagteedii loo daayo inta kale laga qaato yani qaybta uu waayay la fasakho oo la yiraahdo inta kale lacagteedii soo celi waxa kale oo bannaan in muddo dambe la siiyo oo la intana waanu gudoomaynaa inta dhimanna muddo dambe aanu ku siinay dib u baadi doon marka labadu waa bannaan yihiin wallahu subhanahu wa ta'ala alam sa'il kale ayaa wuxuu leeyahay haddii uu shakhsi dukaan ka dalbado dayn raashin ah uuna kula ballamo inuu bixin doono marka uu dalagiisa u soo go'o ma bannaantahay inuu warsado qiimo ka badan kan uu ka siinayo shakhsiga aan daynta ku qaadanayn tooska u iibsanaya dukaanku laba qiimo muu kala samayn karaa haddaad dan iga qaadaysana intaas haddaad ka ii kaashaysana intaas bismi llahi raxmaan raxiim waxaan filaya xalaqaadka hore in laygu weydiiyey su-aashan oo kale ma bannaan tahay qofku badeecada uu hayo alaabtuu iibinayo inuu yidhahdo hadday kaash tahayna waa intaa haddii ay dayn tahayna waa ka badan tahay waxaan nidhi waa bannaan tahay mana aha beecateen fii bayca oo laba iib oo hal iib ku wada jira maaha haddii inta labada iibba uu sheego oo mid ku qanco oo kii lagu heshiiyo lagu ballamo oo ama dayntii lagu ballamo ama kaashkii laysa siiyo oo la shayga kan anigu kaash baan ku iibsan lacagtiina waa tan ama dayn baan ku iibsanayaayo muddada intaa le kadib baan keenayaa in lacagtu ay kala badan tahay wax dhiba ma leh sida salamku marka lacagta la qadimayo ay alaabtu uga jaban tahay marka alaabta hadda la dhiibayo inaga lahayn waxa ka mid ah xikamka loo baneeyay salamka qofna lacagtii buu qadimaya qofna badeecadii oo rakhiisa ila lacagtii hore la qadimay buu dib ka helaya sidaa cagsigeeda haddii badeecaduna hadda la qaadan lacagta dib laga bixinayo in lacagtu ka badataa markay kaashka tahay inta deynta ay badataa waa bannaan tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam su-aasha kale waxay odhanaysaa ma bannaan tahay in lagu wareejiyo qayb ka mid ah lacagtii lagu ballamay inta kalena goortaas uu qayb u bixiyo weliba ay labada dhinacba ay saas ku heshiiyaan mise waa shardi in dhammaan
lacagta la wareejiyo inta fadhiga la fadhiyo goobta marka laga hadlayo salamka bismillaahir rahmaanir rahiim haddii salamku hal caqdi oo kaliya uu yahay lacagtii halkaa heshiis weyn goobta la wada dhigo haddii hal heshiis ama hal caqdi oo hal mar la gelayo uu yahay مثلا كونكي شو بريسة أو هل هالشيء العكسي وأنت أردن هذه أي تهاي وهل هالشيء سوي هاي قوب تلوش العكس اللي وضع قوي لكن وحاب بنان إن إلا سمي مذكرة تفاهم أما نوع بلنقاض وكلا وتكون كي شو بريسة يعني كادونية لكن ما أنت بقول كيش بان هالشيء كوجلينا العكس نواطن mid labaadna bariseenu galay mid saddexaad bariseenu galayna وهكذا ama bil kadib ama way kadib oo wixii uu noqdo uquud salam mutataaliya yani heshiisyo salam oo istawa socda oo qofkii wuxuu ka baqayaa hadda inuu wixii wada bixin kari waayo marka wuxuu leeyahay kun kiish baan guud ahaan ka doonayaa laakiin heshiiska hadda aynu galayna waa 100 kiish lacagtiisna waa tan way kadibna 100 labaad marka wuxuu doonayaa lacagta marba inta u soo xaroota inuu markaa heshiis cusub ku gal marka hadii heshiis loo kala qaado way banaan tahay laakiin waxa hal heshiis yahay oo hal mar la galayo lacagtiisa waa in la wada qadimo lacagtiisi waa in la wada qadimaa wallahu subhanahu wa ta'ala alam سائلك لا يوحلي هاي شيخ هدي قف لعق عدانا وكدينسدو قف كله شيل الصومالي وكله حلقو وكاني لها هدو كانوا قدر لعقتي إن لاك أو وقاتي لكن أو كانوا دولار ما أنصح يا بيعز شيل الصومالي وكقاتي هدو دينا دولار بكان بسم الله الرحمن الرحيم هدو العقد الدينسدي ومركو قام بحيي لعقتي النوع كدوان وكوقام بحي وبنانتاي لكن وحا شرطي لا شرطي شرطي كواد صرف كحلقا ضمبه العقد اللي كلا قدومي وح لو صليو معنيه بشان كوددي بقاطي العقد شل الصومالية او 2 مليون يبره مثلا ما انتو كلا دونيه انو بشو 9 وكلا 9 tahay buu doonayaa inuu qaan baxo wuxuu doonayaa inuu ku qaan baxo dollar sarifka maanta caashka uu marayo مثلا hadii boqolkii dollar maanta maray 2 milyan bad boqol buu bixinaya haduu doon maalinka hore uu sarif nooca noqon waxa laga yaabaa maalinka lacagta ay kala gudoomanayeen inuu maray boqolka dollar 2 milyan 400 laakiin maanta wuxuu maray 2 milyan 500 sarifka maanta wax ku bixinaya marka dollar قياستيسو أما صرفكيسو يهي هدي بقولكيبا بقولكي ضربة 2 مليون 500 وحكو بحنية كاسوا شرطي وصرف كمالك لقام بحيه وحمر يلو حساب طمية شرطي الله بعد وإن قانتي لكلبحو وحده ما لسكو يليلن وإنتي الأولى هاي كاش كاهد إن أردق أنت أو دور أو صرف كيدا ما أنت وكو بحيه وأنو كلا بربرين لبعض الشرطي بحديث كي من عمر رضي الله تعالى عنه ولها وحن كوي بشر جيلة بقيع مركا أنت كوي بيا دراهم بان هدو دنانير قدوم بشر أما أنت كوي بيا دنانير ذهب بان هدو دراهم فضاء وقاد شري نبي قول صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس إذا كان بسعر يومها نب ما لها دي سعر كمالك وحلوك لقاطه أيضا كلا تجينا إذا وحسكله حديث كاس أصحاب السنن باوريي نووي نوا تحسيني مركي حديث كاس فوائد بدن با laga helay oo tani kamid tahay waxa la al-musarafa fi dhimma waxa wax lagu kala sarifanayaa wixii dhimada qofka wixii deyntii lagu lahaa ba sarifkeedii la qaadanaya wi al-musarafa fi dhimma ba la yiraahdaa marka su'aasha jawaabteedu waa sida wallahu subhanahu wa ta'ala aalam jazakallahu khayr al-jazaa su'aal kale ayaa waxay oranaysaa hadii qof bakhaar leeyahay oo dawlad ama shirkad raashin ka qaato ma banaan tahay in raashinkii oo bakhaarka yaala uu dib uga siisto dadkii qaadanayay lacag ka yartii uu ku qortay ciduu heshiiska kula galay بسم الله الرحمن الرحيم أما هالنقطة دولة أما هالنقطة
ganacsato shicib ah qofka shaygii laga gatay in dib loogu celiyo lacagtii lacag ka yar dib looga siiya ma bannaana arrinkaasna waa ciina nebigu sallallahu alayhi wasallam ciinada waa maagay oo haddii aad ku heshiisaan ciina ku baayactantaan oo jihaad ka tagtaanoo looda kaliya dhaqataan ilaahay dullibdi ku salidayaa buu yidhi marka qofkii shayga kaa gaday inaad dib uga iibiso oo qiimo ka yar ka siisaa ma bannaana sababka loo diiday waxaa weeye ciinadu waxay xeelad u tahay ribadii oo maalan markaad siisato kiish bariisa $30 ee aad guddoonto $30 qofkii aad guddoonsiiso ee aad dib uga iibiso ka siiso $25 maalan kiishkii dib baad ugu celisay maxaad qaadatay $25 adna maxaad bixisay $30 kiishkina wuxuu ku noqday gurigiisii qofkii lahaaba dib ugu noqday waxa markaa xaqiiq ahaan la isdhaafsaday waa laba lacagayow oo midna 30 midna maxay tahay 25 idan waxay u muuqanaysaa in la isku gaday laba lacagayow oo kala badan kiishkana uu ahaa mahlal ama wax lagu xalaaleysanayo ribada ah laba lacagayow oo isku jinsiya in la kala badiyay haddii ay deyn tahay lacagta horena waa sida ay u badan tahay ay sameeyaan dadka qaarkii alaab bakhaar ka amaahanaya qiimo qaali uu kaga amaahanaya markuu alaabtii la wareegay buu ku celinaya qiimo jaban buu ka siinaya dabeedna kaash buu qaadanaya wuxuu doonayaa waa kaashka waxa lagu qorayaana waa maxay waa deyn ka badan tii isagu uu qaatay kaashka ahay idan waxay ka dhigan tahay in lacag badan lacag yar la amaahiyey lacag badan lagu qorsay marka arrinkaasna waa ribo mana bannaana wallahu subhanahu wa ta'ala alam جزاك الله خير دكتور سؤال سيدا وديك أنت وحنا مودا دولة دا كجات راشنكا أما هايد بكجاتي كبعدي وحلا وطلق ليدت كلا إنه CCU أما تكلا كسي قضى مركا هاي دولة دا العقد بدن بكوكرتي هذا ودينا دتك العقد أنت كير بوكسينا يا ناس وكلا يدا سيدا ونقص معنيه الدولة دي بكجاتي راشنكا تيمية دولة أما شركات راشين كقاطو ما بنانتا إنه راشين كي أو بخار كيالا يدب وقاسي ستو دتكي قادنا العق كيرتي وسقطي. السؤال ما فهمين هدي أي تهاي عد بكيب سعيد كنا بكيب بنيا وعد اللي جايب سعيد اللي جايب بنيا ينسكم مده هين سجى خيار له أما العق شبنا كسيو أما مد بدنا كسيو dhib male hadii ay tahay cidu ka gatay cid aan ahayn buu ka sii ibinaya haday tahay waa beec furan oo qiimihii mid la mid iyo mid ka badan mid ka yar buu ku gadi karaa wallahi subhanahu wa ta'ala laakiin su'aasha sidoo wada fahmay wallahu a'lam su'aal kale iyadana waxay dhahaysaa shariicada islaamku maxay ka qabtaa hadii bangigu uusan haysan gawaari oo anigu gaari la imaado qiimahana ku soo heshiino oo bangiga aan geeyo lacagtana iga bixiyo lacagta dul saarna ii saaro xalaalnimadeeda see noqonaysa qofku gaari intuu soo arkoodo xitaa qiimaha soo ogaado wuu odhan karaa gaariga halkaa yaalla macradka ama hebel leeyahay oo qiimaha intaa leeg la siinayo baan doonaya bangigiiyo gado oo iga iibi hadday saa tahay waa bannaanta hadday tahay heshiis uu soo galay oo gaarigu uu soo iibsaday oo hebelkiiba u tagay ama macradkiiba u tagay gaariga waa way iibay ku heshiiyeen gaariga uu gudgaday iga gaday ka gadnay ilaahen qiimaha inta laga baanu ka siin baaci oo dhacay bangiga imanaya wuxuu leeyahay gaariga aan doonayaa in la gado taas ma banaana waayo bangigu markan dambe qaab ama suurada dambe wuxuu bixinayaa lacag un baac dhacay iyo heshiis dhacay iyo iib dhacay buu lacag ka bixinaya marka lacagtaas amaah bay noqonaysaa waa amaahinayo qofkan macmiilka ah isna wuxuu ku qoranaya lacag ka badan wuxuu ka macaashayaa hadday saa tahay dambe ma banaana hadday se tahay uu soo arkay oo qiimuhu soo ogaaday oo markuu bangigu soo bangigii uu tagay meeshii uu tagay isaga heshiiskii galay oo iibsaday kadibna ka sii iibiyay hadday saa tahayna waa banaan tahay wallahu subhanahu wa ta'ala jazakallahu khayr aljazaa daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhageystayaal محاضرة النعاوة يكسب سنيد سلامك يسؤاله
وحلينا الله سبحانه وتعالى دكتور كابال مريو ميزاك حسنات الله سبحانه وتعالى ودروا علمي إله وبركيه إننا الله سبحانه وتعالى نكدجو كوي وأنفعه دكتور أحمد جاء إسماعيل مرة وعلى تليه هذا كشرع هذا بنك أمل خميس ما تنكلا إنه موضوع صب إن شاء الله إنه أبلا صنع درمه إنتاس وحين وكالة تجينا إنتاس ينبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.